bismillaahi raxmaan raxiim waxaan u wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show waa 27ka bisha 6aad 2026 maalinimo sabti ah marka hore waxaan idin xasuusinayaa inaan ku jirno barnaamijkii challenge-ga ah oo kaas oo Facebook in hor dhigay hadii muuqaalkan uu ka soo horbaxo like iyo share si meel fog uu gaaro Iran ayaa tan iyo horaantii maanta fulisay weeraro ka dhacay saldhigyada Mareykanka dhinaca kale shirkadda Apple ayaa waxa la leeyahay waxa ay qalqal gelisay dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka iyadoo eeganaysa danaheeda dhaqaale aynu ku bilownay Iran ayaa tan iyo horaantii maanta fulisay weeraro ka dhacay saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Bahrain ay xaqiijisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran in ay ku dhaceen bartilmaameedyo ku yaala gudaha Bahrain sida ay baahisay Al Jazeera oo sheegtay weeraradan in ay Iran ugu jawaabtay duqeymo uu xalay Mareykanka ka geystay gudaha Iran dhinaca kale shirkadda Apple ayaa la sheegay inay wada hadallo la leedahay maamulka Trump si looga ogolaado inay jibiska xasuusta ee loo yaqaan memory jibiska iibsato shirkadda Chinese-ka ee loo yaqaan CXMT inkastoo shirkadaas ay ku jirto liiska madow ee wasaaradda difaaca ee Mareykanka Apple ayaa la rumaysan inay raadinayso talaabadan si ay ugu yareyso khasaaraha wax soo saarka maadaama qiimaha qaybahan elektrooniga uu sare u kacay hase yeeshee arrintan ayaa dhalisay dood ku saabsan amniga qaranka iyo xiriirka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha